ku hadlayo afka aqooyahanka iyo dhalinyarada beesha baadacade waxaan rabaa inaan taageero marka hore hadalkii madaxweynaha jamhuuriyadda oo ahayd in gobolkan Banaadir oo yeesho matalaad waxaan rabaa markii inaan yiraahdo matalaada gobolka Banaadir iyo maqaamka magaalada Muqdisho waa muqaddas waana qodob dastuuri ah sida ku cad dastuurka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya waxaan rabaa marka halkaan inaan codsi ugu diro mudanayaasha golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliyeed oo maanta aan rajaynayo inay u codeyn doonaan in gobolka Banaadir uu matalaad yeesho waxaan rabaa mudanayaal codkii shacabka aad meesha ku fadhisaan codkanadii aad meesha ku joogtaan magaalada Muqdisho oo ah caasimadda ummadda Soomaaliyeed waxaan rabaa inaad door muhiim ah ka ciyaartaan sidii magaalada Muqdisho ay ku yeelan lahayd maqaam gooni ah waana qodob dastuuri ah waxaan hadda aan dhahay malahan ma jiro waa qodob dastuuri ah in magaaladan ay yeeshato maqaam iyadoo gaar ah maadaama 3 milyan in ka badan ay ku nool yihiin ana ku hadlayo marka dhalinyarada aqooyahanka afkoodu waxaan codsanayaa labada aqal ee aqalka sare iyo golaha shacabka in gobolka Banaadir ay maanta u codeeyaan inuu yeesho 20 sanatar aqalka sare inay ku yeeshaan sababtoo ah 4 milyan dad ka badan meeshaan u degan si gaar ah anaga marka ka beesha baadacada ahaan si gaar ah inuu dhibaysa gobolka Banaadir inuu matalaad la'aan ahaado waxaan codsanayaa baarlamaanka maanta inay go'aan ka gaaraan aysan u kala kicin maadaama maanta ay ka hadlayaan gobolka Banaadirna ay waajib noqoto in matalaad uu ku yeesho xubnaha aqalka sare maadaama dawlad goboleedyada kale ay leeyihiin matalaad waxaan rabaa marka inaan fariin halkaan ugu diro waxaan maqlaay siyaasiyiin qaar oo ka ololeynaysa in gobolka Banaadir uu matalaad yeesho walaalayaal naga raali ahaada annagayna dhibaysa in gobolkan uu ahaado matalaad la'aan gobolka waa la wada degan yahay waa caasimadda ummadda Soomaaliyeed laakiin haddana waxa war uu ka taagneen in gobolkan haddana loo kala badan yahay si gaar ah annaga waxa moodaa in cashuurta dawladda ay ku socotaba dadka ugu horeeyo oo haddana ka weyn laba aan ka nahay cashuurta dawladda ay ku socotaba laga qaada ganacsatadana si gaar ah markii si gaar ah inuu dhibaysa gobolkan inuu matalaad la'aan ahaado waa ku soo celcelinayaa waana u taagnaa doonaa gobolkan maanta waa inuu yeeshaa matalaad baarlamaankana ay noqotaa maanta maalin taariikhi ah oo ay u codeeyaan in gobolka Banaadir uu yeesho 20 sanatar waxaan kaloo rabaa marka ragga ku howlan oo sida wararka ay nagu soo gaarayaan diidan in gobolka matalaad uu yeesho waxa leeyahay ilma adeerayaal oo naga raali ahaada sarafaad leedihiin rag siyaasiyiin oo dalka magac ku lahaatihiin wararka marka suuqa la isla dhaxmaraayo oo la dhahayo rag baa ka codeynaya in gobolkan uu yeesho matalaad la'aan anaga si gaar ah inoo dhibaysa waxaan idin leeyahay naga raali ahaada walaalayaal ugu dambeyn marka waxaan warkaygu soo koobaya dawladda federaalka Soomaaliyeed oo hogaaminayo madaxweynaha jamhuuriyadda iyo ra'iisul wasaaraha Xasan Cali Khayre waxaan ku bogaadinayaa maaratay go'aankii ahaa in gobolka Banaadir uu yeesho matalaad waa ku mahadsantihiin waan idinka mahadcelinaynaa inta ay in ka badan maaratay go'aanka ku gaarteen maadaama rag idinka ka horeeyay ay garan waayeen in maanta matalaad maaratay gobolka Banaadir uu yeesho waa ku mahadsantihiin waana soo dhaweynaynaa waxaan codsanaa mar koowaad iyo mar labaad baarlamaanka arinta iyada maanta inaysan u kala kicin oo gobolka Banaadir ay maaratay arintiisa ay meel u bixiyaan